السلام عليكم kusoo dhawaada muuqaalka waan ka sameynaa luqadda CSS muuqaalka ugu dambeeyay waxaan ka sameynay luqadda HTML oo aan niri waa luqadda markii aad rabtid toos inaad page wax ugu soo qortid luqadda aad adeegsato tusaale ahaan oo kale muuqaalka ugu dambeeyay intaan aan toos page ugu soo qornay meeshaan console-kii maxaa adeegsan jirnay console-kii waa ka hoos yaala total ka hoos yaala meeshaan waa page-ka caadiga ahayd haddaba intaas waxaan rabnaa inaan styling ku sameyno qurxin ilaa aan ka dhigno boggaan oo kale boggaan quruxda badan ciwaanka guud uu kalar gaar ah leeyahay section kasta uu kalaraysan yahay haddana uu leeyahay border saa xoogaa usu yara xoodan footerka uu leeyahay background-gii tii hore oo kale intaas rabnaa inaan sameyno okay bismillah let's begin marka hore waxaad tagaysaa page-kaaga index.js meesha ku qoran .js waa muhiim line-kaas please has ka tirtirin wixii kale oo dhan waa tirtiri kartaa laakiin line-kaas import css-ka ha tirtirin haddii aad tirtid soo celi hadda intaa qor kabacdi page-kan bilahi tawfiiq wax dambe uga baahan mayno sidaas waa iska xiraynaa total uma baahnin waxaad tagtaa meesha fileskaaga ay yaalaan marka waa saas ku yahay yani anaa isku dhajoeyey waxaad tagtaa style.css meeshaan css ku qoran waa meeshaas style.css uu kuusoo furmay halkaas ku imaanaya iska qaad inta ku qoran iska tirtir ama baahnin total wax uga baahnin hataa mid cusub qoranaynaa markii aad styleka isticmaalayso waxa u baahan tahay in aad u sheegto stylekaas sameynaysid cidda aad rabto inay qaadato tusaale ahaan oo kale ciwaankan rabto inaad style u samaysid halkan iskagama qori kadib hal mar stylekii madow ka dhig colorka background-ga saa ka dhig iskagama qori kadib waa inaad dhahdaa stylekan aan soo wado ciwaankaasaa leh see u dhigi kartaa waa inaad isticmaashaa wax la yidhahdo css selectors waa inaad isticmaashaa ciwaankaas wax asaga u gaara isticmaashaa ciwaanka wax u gaara ciwaankan maanta yaa u gaara waxaa isticmaali kartaa inaad dhahdid h1kaasaa u gaara laakiin waxaa rabaa marka koowaad ciwaanka anaa background weyn u sameeyo ciwaanka laftigiisa css-ka intaan waxba ka bedelin welcome to html qoraalka laftiisa intaan wax ka bedelin waxaa rabaa inaa background u sameeyo sababtoo ah fiiri background madow uu leeyahay haddaba waxaa adeegsanayaa css selectors baa adeegsanaya waxaan dhahayaa css selectors waa dhowr xabo mid koowaad waa inaad magaciisa toos adeegsatid shayga magaciisiyo toos ah in aad adeegsatid oo aad dhahdid toos noogee kabacdina nope kabacdina waxaad dhahdaa header toos u tag magaciisa toos inaad adeegsatid toos kabacdina aad bracketka nooca furatid curly brace aad furatid kabacdina meeshaan aad ku qortid waxay u baahan inuu yeesho tusaale ahaan oo kale maanta waxaan u baahanahay meeshaan background-geeda inaan ka dhigo background noocaan colorkan noocaan inaan ka dhiga u baahanahay haddaba waxaan dhahayaa colorkan see sidaa uga dhigaa waxaa adeegsanayaa erey la yidhahdo background color waxaan adeegsanayaa color khaas ah tusaale ahaan oo kale madow ma rabo black baa ka dhigi karaa black hadaa ka dhigo fiiri wixii dhan black busoo noqonaya laakiin black ma rabo waxaa ka dhigi karaa tusaale ahaan oo kale blue baa ka dhigi karaa meeshaan blue buu noqonaya magacyada waa qori kartaa laakiin waxaan rabaa color wax islan ka duwan inaan isticmaalo sidaa darteed waxaan isticmaalayaa colorka calaamadiisii waxaan dhahayaa waxaad iga dhigtaa colorka 333 colorkan see kusoo doortay waa soo raadin kartaa tusaale ahaan oo kale page-ka haddaad tagtid la yidhahdo colorhex.com colorka isla calaamadiis ku siinaya colorka haddaa u baahata calaamadaas ku qoran kartaa css-ka dhexdiisa colorkaas isku bedelaya colorka calaamadda marka maanta anu colorkana u baahanayo calaamadiisaan soo ogaaday kabacdina waan soo qaatay haddaba waxaa kasta inay kala duwan yihiin annaga background-geedu uu wen yahay farta ku dhex qorana ay tahay caddaan markaad farta ku dhex qoran aan bedelno hadda meesha madow weye sida darteed aan bedelno marka rabtana waxa ku dhex qoran header waxa ku dhex qoran colorkiisa inaad bedeshid waxaa isticmaalaysaa erey fudud color keliya waxaana dhahaysaa tusaale ahaan maanta waxaa rabaa white inay noqoto farti way isbedeshay total way isbedeshay soo mateed waxaan arkaysaa haddana ani aad ugu dhow yahay fartu in ay aad ugu dhowdahay qoraalka in ay aad ugu dhowdahay waxaan rabaa inaan ka yara fogeeyo sida ay tamba tahay ka yara durugsan tahay waxaa isticmaalanaa erey la yidhahdo padding oo ah in aad shayga ka durkisid tusaale ahaan paddingka waxaa dhahayaa 20 pixels ka dhig baa dhahayaa paddingka maxaa weeye marka paddingka wax kale ma ahan waxa weeye
baarinka hadda waxu adeegsanayna hierarchy oo ah meeshaan lagu dhex jiro baarinka marka waxa weeye inaad dhahdid alaabtii kugu dhex jirtay waraa iga kala fogaada darbiga xogaa ka fogaada heerinkana wuxuu la hadlayaa alaabtan ku dhex jirtay maanta ku dhex jira hkriya ku dhex jirta xayawaankan ku dhex jira wuxuu dhahayaa waraa darbiyada ka fogaada saadad markuu darbiyada ka fogaado ku khasbanaya aanu asagu weynaado sababta kuwan sii yaraanaya saadad ku khasbanaya inuu asagu dhaho inuu asagu yiraahdo maadaama uu yiri waraa iga durka ay taabanina laamisaas iga durka haddaba maxaa adeegsanay 20 pixels waxaan arkaynaa in uu ka weyn yahay kan uu yara dhuuban yahay calaamadda ay yara dhuuban tahay yacni background uu dhuuban yahay annagana uu noo ballaaran yahay dib baa ka dhuumin doonaa laakiin wax kale arkaysaa haddii aan jiido waxaa arkaysaa inuu qoraalkii gees iskugu aruurayo anna waxaa rabaa inuu qoraalku dhexda markas taagnaado si kasta u weyneeyey qoraalku inuu dhexda taagnaada rabaa dhexda uu ka tago ma rabo haddaba erey baa adeegsanaya u gaar ah haddana in shay dhexdeeda geliyo waxaa dhahaya text align center text align baa qoraya kabacdina center baa qoraya asagaa ii dhamaystiray kabacdina dhexdu geynaya hadda fiiriya taa sidii dhaho qoraalka dhexdu taagnaanaya totally ka u dhaawamay waxaan odhan sameynaa waa style haddaba si guud ya herarku ilaa taqriiban hadda uu qurux badan yahay intaa ka badan ama baahnina ku sii ciyaarno hadda waxaan aragnaa in uu yara ballaaran yahay background-gan uu yara ballaaran yahay sidaas kor nagu dhuubnay siyaabo badan baa oga dhigi kartaa laakiin annaga waxaan samaynay 20 pixels bay ahaayeen 20 pixels intaan ma ahan intaan 20 pixels way ka weyntaa waxaana sababaya hta ku dhex jirta wax ay ku timaado baggage ay ku timaado dadkii hta sameeyey h1ka sameeyey ama mar kasta markaad h1 isticmaashid waxay usoo dhiibeen baa jirta oo ah h1 laftigeeda inay leedahay iga durka يعني بنانك يقدر أيضا بنانك يقدر كله سقوط ولا يدرب هوس يعني قتابة سادت جودها ودرك أيضا واحد هذا كره يقدر الله يقدر بقى سقوط السنة بس وفي عاد وينانية يعني سادت واحد 20 بكسل وكوينه 20 بكسل بانت البناي لكن وكوينه سادت واحد صويسة هنا أيضا يقدر كله وضعها سادت واحد هنا مركو واحد أمرنا H1 كسوقنا علامة H1 كتيرنا H1 سيدان هير أونري بقى H1 ما تسجار وتيرنا أيضا واحد هنا يقدر كذا جودها واحد يردا بارين يقدر كبنانك أيضا له oo la yiraahdo margin waxaan dhahaynaa iga durka banaanka ee h2 waa 0 ma leh total ma leh sadartu markay iga durka ka baabiiso kaas wixii dhan uu dhumaya sababta h2 ka baabiisay sidoo kale waxaan rabaa inaan xoogaa weyneeyo waxaan moodaa fartu inay tiis xoogaa naga weyn tahay taqriiban waa keenay laakiin xoogaa haddii aan weyneeyo waxaan dhihi karaa ereyga lagu weyneeyo font size baa adeegsanaya font size hoos ku taarota waxaan dhahayaa waxa iga dhigtaa tusaale ahaan kale 32 pixels marka computerka la joogo pixel waa wax lagu cabiro sida mitir anagu wax ku cabirno kale pixel wuxuu ku cabirto mitir taqriiban hierarchy stylekiisa waa dhammayn hal wax baa noo haray in aan samayno oo ah in uu darbiga hadda aad ugu dhow yahay muuqata laakiin dib baa ka samaynayna waxba hadda kan fiiri darbigu ka soo fog yahay kor iyo geesaha labadaba kan laakiin aad buu ugu dhow yahay dib ayaan ka samayn doonaa waxaa maanta hana gelin waxaa noo geysaa section kana rabnaa inaan hagaajino meesha ugu muuqato waa section kana rabnaa inaan hagaajino okay soo hagaajina waxa soo qaadanaynaa anaa section iska leh section marka koowaad wuxuu leeyahay kow waxa koowaad uu leeyahay waa background waa noo muuqda inta kalena waa si wax badan laga bedelin bidana la moodaa in farteeda la bedelay oo annaga waxay noo ahayd madow caadi noo ahayd مدو عادي نوع لكن اللي كان مدو أو ما أهان قرآن كان مدو ما أهان هذا لو واحد بدلنا لو واحد أقول مساحة بدلنا لورك وحكى بدلنا وباك جراوند أنا بدلنا بعدين أقص منه أنت قالوا عيرك أقص منه كبعدين أنا فرتان بدلنا كلر كذا خير أوكي سلأرجع بدك سينا بدل ميز باك جراوند كلر بدك سينا ما أنت واحد بدك سينا باك جراوند كلر كارا صار أهان وكله واحد بدك سينا RGB بدك سينا عند RGB أسكال أدكسن فكلامك واحد أقرأ كده دور نوع إن النوع عنو قرأتي علامة إيو علامة هاشكا يترو سيدو كلام هذا RGB إن قرأت نوع الصميم كرتا وأمانت كأدكسن أوضع الصميم كرتا RGB مركز هذا براكت بفرنسا بدنا واحد قرأيسا صدح ترو سؤال أمانت واحد قرأنا T3 ميل بانك قرأيا 236 وكالر عن صوت دورتي 236 236 ولا اسمه 236
soo ma jeedin already wuu isbedelay color background intaan maxaa weeye sidaan halkaan u doorayna background qaabada u doorayna maanta isla qaabad kale waa qaabad kale oo color loo dooran karo background kaliya color kasta saas u dooran kartaa yacni saddexaan tirana waxaa weeye maadaama color kasta uu ka samaysan yahay blue green iyo red oo la isku daray intaana waa blue green iyo red intay kala yihiin proportion kala yihiin maanta yacni taqriiban in isku wada mid isku wada darto oo weli lambar waaweyn okay colorkaas soo baxay anyway siyaabo kala duwan u dooran karaa color muhiimad ma colorkaas soo baxay laakiin waxaa aragnaa aad buu u faalxun yahay yani darbigu ku dhegsan yahay colorku aad buu nagu dhow yahay kan laakiin fiiri stylekiisu suu qurux badan yahay darbigu suu uga durksan yahay suu isaga u leeyahay keefiga yarkaa qurux badan suu u leeyahay saas intaas rabnaan u samayno markood waxaan dhahaynaa waxaan rabnaa inaan dhahno horta xoogaa iga durki saaxiibada xoogaa iga durki ama intaana dhihin aan dhaho iga dur gudaha yani iga dur dabada iga dur gudaha jirta iga dur gudaha aan samayno waxaan dhahaynaa isla ereyga adeegsanay iga dur gudaha waxaa loo adeegsadaa barian isla ereyga adeegsanayna kana waxaan dhahaynaa isla intii oo kale 20 pixels iga dur check isla markiiba wuxuu ka durkayaa shaygii buu ka durkayaa laakiin mushkilad qabsatay haddana yani kan halkaan ku dhamaadaa taqriiban halkaan ku dhamaadaa halkaan ka bilaabnaa ilaa hoos yani ciwaankan wuu ka soo durkay darbigii laakiin mushkiladna qabsatay haddana labadii shay way isku dhageen waxaa isku dhagay sectionkii kore iyo sectionkii hoose isku dhagay sida lama kala garanayo isku background ay noqdeen sida darteed waa inaan section kasta si gaar ah u dhahdaa korkayga please ha laga durko hadda wuxuu yiri gudahayga ha laga durko sida darbigii ka soo durkay qoraalladii darbigii ka soo durkay korkayga ha laga durko markaa dhahaydna ama hoostiisa ha laga durko adinta labadaana kala fuqasa sababta mid kasta wuxuu rabaa in hoostiisa laga durko aan lagu dhigin hoostiisa ama korkiisa laga durko sida darteed istaan mayaan okay korkayga ha laga durko loo dhahaa waxaa la adeegsadaa ereyga margin baa adeegsanaa ereyga margin sana hoostiisa ha laga durko ma adeegsanaa sida margin bottom baa adeegsanaa margin bottom hoostiisa ha laga durko dhahayna hoostiisa ha laga durko loo dhahaa waxaan dhahaynaa waxa iga durtaa 30 pixels yep way kala fuqeen total soo jeed taqriiban hadda waa dhownaha wax yar baa noo haray waxaa noo haray intaana curve u samayno hadda waxaa aragnaa meesha fiir curve-kan si quruxda u soo xoodaya waa xood keenu laakiin xood ma aha fiiq caadi u leeyahay haddaba xoodkaasi u samaynaa waxaa adeegsanaynaa waxa la yidhahdaa border radius taa ku dhufso waxaana ka dhigtaa tusaale ahaan oo kale 5 pixels ka dhig 5 pixels wuu soo xoodmaya hadaad 50 pixels daa ka dhiganaan ka hor 50 pixels daa ka dhiganaan saasuu noqon lahaa aad buu soo xoodmi lahaa saddex 5 kaliya rabnaa xoodniya buu samaynayaa taqriiban hadda waa keenna laakiin fiiri midda noo hartay fiiri section kood caadi u noqday section labaad caadi u noqday sectionka saddexaad waa tabtiisii sababtaa marka HTML ka soo hadlaynay ereyga section qaybta ugu dambaysa ereyga section maana adeegsan waxaa adeegsanay ereyga la yiraahdo div baa adeegsanay tag la yiraahdo div baa adeegsanay sidaas waxaan hadda styliskan aan samaynay waxay ku dabaqmayaan cidii section ereyga section adeegsatay oo ah labada kore ku dabaqmayaan kan ku dabaqmayaan haddaba kan soo adeegsanaa ereyga div ma adeegsanaa ereyga div waa adeegsan karaa laakiin mushkilad kale aan qabsanaysan waxa weeye div laba jeer baa adeegsanay kan koowaadna div waa u adeegsanay oo kulligiis lagu wada jiray aan divkan ka bilaabmada ilaa halkaan uu taga yani kulligiis waa lagu wada jiraa kan gaarkaana div u adeegsanay yarkaa sida darteed haddaan intaa div iska qaadano aan iska tagno dee styleka wuxuu ku dabaqmayaa pagekan oo dhan wuu ku dabaqmayaa sababtaa pagekan oo dhan wuxuu ku dhex jiraa div buu ku dhex jiraa si gaarana intaan div lagu dhex jiraa sida labada ku dabaqmaya yani styleka aan qorno hal mar pageka dhan saameynaya kulligiis saameynaya anaguna ma rabno waxaan rabnaa intaan yarta cidnoo saamaysa haddaba waxaan sameynaynaa meesha uga soconay waa kan sababtaan div u samaynay markii hore waa tana kana magac gaar u samaysanayna marna ana ereyga div adeegsano magac gaar u samaysanayna tusaale ahaan kale waxaan u samaysanayna id baan u samaysanayna id baan dhahaynaa kabacdina equal kabacdina quote-kaas ku furmaya id ga u samaysanayna waxa weeye tusaale ahaan iska dhahno my div aan iska dhaho why not my div aan saa u qoro magaca intaa bixi kartaa my div aan dhahayaa waa soo tegaya section hoostiisa imaanaya dot baa qoraya baan waxaa qoraya magaca u soo baxsaday oo ah my div tabana intii oo kale la exactly intii oo kale okay my div kan maxaa rabaa inuu yeesho
waxaan rabaa style kuwaan oo kale inuu yeesho sidaa darteed waxba intaan ha qorinin isla intii usoo koobiya isaga laftiisa haddii aad isla styleka aad la rabtid isla intii usoo koobiya badana khalaas shuur no yaan ku khaldin markii aad joogtid tan waxaan ku calaamadinay id baan ku calaamadinay id baan ku calaamadinay yani my div waa id magac ma ahan class name ma ahan sidaa darteed id-ga markii la joogo dot qori maysid ee waxaa qoraysaa hash baa qoraysaa intaas cafwan hash baa qoraysaa kabacdina toos buu ugu dabaqmayaa soo ma jeed uu ku dabaqmay stylekii uu ku dabaqmay markii aan dadka qoranay fiil kuma uu dabaqmin si asalkaa buu ahaa laakiin marka ka bedelno aan hash u bedelno uu ku dabaqmayaa waxaa noo haray oo keliya laba shay baa noo hartay shayga koowaad waxa weeye page-kan waxaa aragnaa korkiisa inuu aad u weyn yahay meel bannaan fiican leeyahay sidoo kale meeshaana ay bannaan tahay annaga fiiri labadaba ma bannaana korna ma bannaana meeshaan hoosena total ma bannaana sidoo kale waxaa kaloo noo haray qoraalka html-ka qoraalkan paragraph-ka annaga wuxuu noo yahay madow toos u noo yahay madow toos u noo yahay laakiin css-kan madow toosa oo ma aha sidaa darteed labada meelood waxaa u baahan nahay inaan bedelnaa u baahan nahay oo maxaa dhahaynaa waxaa noo keentaa meeshana na keen kow waxaa u baahan nahay inaan bedelno qoraalka b-da qoraalka b-da si aan u bedelno b taggii soo qaado kabacdina intii sameen oo waxaa dhahdaa b taggi kow kalarkiisa i bedel kalarkiisana waxaa ka dhigtaa tusaale ahaan oo kale waa mid anugu soo doortay kalarka dooran kartaa wuu khafiifay soo ma jeedi intaana baddo kaa samayn fiiri kalarka madowga tooskaa buu ahaa markaas sameeyo wuu khafiifayaa khafiifkaasaana ka rabay sidoo kale waxaa arkaysaa haddii aan taqriiban isku yara dhaweeyaan si fiican u fiirso meeshaas tiisa qof tan u fiiri qoraalku laymanku way yara kala fog yihiin aad iskuma dhowan annaga laakiin teena fiiri laymankeena fiiri hoos iskaga wada jiraan sidaa darteed waxaan adeegsanaynaa erey ah laymanka ii kala fogeen line height baa adeegsanaynaa waxaana ka dhigaynaa tusaale ahaan tirooyinka waad sheegan kartaa 1.5 taqriiban 1.5 taqriiban wii kala fogeysa ma jiro and that's enough waan filayaa waxaa noo haray oo keliya hadda waxaa yar baa noo haray sidoo kale aan ku cayaarno footerka aan ku cayaarno footerka waxaa aragnaa marka meeshaan la joogo background buu leeyahay haddaba footerkana sidoo kale aan backgroundka u sameyno aan dhahno maadaama footer cid kale aan dhihin magacaas ka soo qaado footerka soo qaado waxaa aragnaa backgroundkiisu inuu yahay isla backgroundkii hore bilowga yani background headerka inuu yahay sidaa darteed isna soo qaado backgroundka headerka soo qaado toos soo qaado where is header background soo qaado where is no waxaan joogaa file kale aan joogaa cafan filekii asalka aan joogo background soo qaado yep totally wuu isbedelay soo jeedi laakiin waxaan aragnaa weli inay mushkilad haysato mushkilad maxaa inuu wixii darbigu joogaa yani dhexda ma joogo laakiin tan kale u fiirso dhexdu joogaa tan dhexdu markas qoraalka jooga haddaba see ugeynaa isla ereygii baa adeegsanayna marka koowaad adeegsanay si aan ciwaanka dhexda u geyno ciwaanka weyn aan dhexda u geyno waxaa dhahaynaa text align center I hope inay shaqeynayso text align center dhexda u geeyo total soo ma jeed dhexdu noo geeyo maxaa kaloo noo haray waxaan kaloo ku darsanaynaa footerka waxaa aragnaa in xoogaa ka dhuuban yahay sida caadiga ahayd sidaa darteed waxaan dhahaynaa tusaale ahaan oo kale footerkan b-diisa margin ka baabi'inaynaa ama waxaad dhihi kartaa tusaale ahaan oo kale height yar baa u samayn kartaa tusaale ahaan oo kale aan dhahno tusaale ahaan oo kale height yar baa u samaynaya ana xoogaa ka weynaada rabaa tusaale ahaan tirooyin baa iska tijaabinaya 10 pixels no aad buu sii yaraaday tusaale 50 pixels siyaabo kala duwan baa u samayn kartaa okay tana aad buu weynaaday tusaale ahaan waxaa dhihi karaa 30 pixels yeah تقريبا عادي وجه سياق كله تربط وصلنا كرتا هذا مركز تنقل يس كلا أسميه لكن واي نوت أنا قاب كله تشابهن فجأة يروين أوكي حنو هري إن دربي كسر فكين شيء دربي كسر أسر فكين بيج كنا نروح نقول احترام عن مركوات إن
tag la yiraahdo body tag la yiraahdo body aan soo sameynay body la yiraahdo sidoo kale wuxuu ku dhex jiraa tag la yiraahdo div oo haysta min halkan ilaa dhammaadka kale haddaba waxaan rabnaa divkan inaan body ka soo yara durkino haddaba maxaa sameynaynaa divka magac u soo baxsanaa marka koowaad divkeena magac u soo baxsana maadaama laba div ay jiraan divkana div kale uu yahay si ay iskugu khaldamin kana magac gaar ah u sameyn kii hore waxa u sameynaa id kan aan class u sameynaa id baa u sameyn karnaa laakiin class u sameyn si aan waxyaabo kala duwan u adeegsano waxyaabo kala duwan oo baratid id la yiraahdo container aan u sameysan maadaama waxa dhan isaga ay ku jiraan container oo iska baxsan waxyaabo kala bixin kartaa in container u bixin kor ka bacdina aan tagno maadaama meesha ugu sarreysay asagu uu joogo kor aan tagno hoos ku qor kale laakiin kor waa iska qortaan ku qoratid ka bacdina aan u yeerno sidii class name ka lagu yeerto waxaan waa dot ina qortid ka bacdina aad qortid magaca shayga qofka u yeer shayga u yeeraysa maanta container baa u yeeraynaa inta qoro waxaan rabnaa inuu darbigan ka soo durko total inuu ka soo durka rabaa sidoo kale waxaan rabaa inuu ka soo durko darbiyadan korna inuu ka soo durko geesahan uu ka soo durko waxaan sameynaa si uu kor uga soo durko iyaga waxaa adeegsanayaa margin tusaale kale 50 pixels 50 pixels kor uu ka soo durkay laakiin waxaan arkaa in uu geesihiina aad uga soo durkay halkan 50 pixels ka soo durkaya halkan 50 pixels ka soo durkaya ma rabo inuu saas sameeyo waxaan rabaa kor inuu 50 pixels ka soo durko hoosna geesahana mar kasta intii u bannaan kaliya intii chance uu helayo uu ka soo durko ama intaana saas sameyn aan dhaho tan iga calaamad total iga calaamad sababtoo lama fahmi karo kuwa soo sameyn step kuwa soo sameyn shaygan dhan lagu dhex jiro dhan containerka lagu dhex jiro waxa uu sameynaya width ballac baa u sameynaya waxaan dhahayaa ballacaagu waxa weeye ereg width baa adeegsanaya ballacaagu waxa weeye 90 tusaale ahaan meeqa ka dhigay ka yar qashaya tusaale ahaan 95 boqolkiiba calaamad boqolkiiba adeegsado 95 boqolkiiba calaamad boqolkiiba markaa adeegsatid containerkan wuxuu noqonayaa 95 boqolkiiba cidda uu ku dhex jiro maanta uu ku dhex jiraa body buu ku dhex jiraa body wuxuu haystaa darbiga dhan buu haystaa sidaa darteed wuxuu noqonayaa 90 boqolkiiba in markaa durkiyo marka 90 buu qabsanaya intaas soo banaynaya sababta intaas ilaa halka waa boqolkiiba boqol intaanu soo banaynaya si aan u xalino 90 dhexda ugu tago usan gees kaliya uga durkin waa xalin doonaa laakiin 90 waxa weeye 95 bodyga qofka shayga ku dhex jira tagga ku dhex jira 90 boqolkiiba okay marka inta dhaho waxa rabaa marka inaad dhaho hadda marginka waxa weeye 50 pixels kor iyo geesaha laakiin geesaha ma rabo geesaha waxa rabaa 95 markuu shaygu saa u durko inuusan geestan kaliya banaynin wixii 90 ka soo haray ay labada gees u kala qaybsamaan yacni faylkayga dhan uu dhexda joogo kala barka uu tago sidaa darteed waxaan dhahayaa geesahana waxaa ka soo durugtaa si isleeg uga soo durug si isleeg waxaa la auto ereyga auto waxa weeye yani labada dhinac markii aad chance heshid hadduu boos weyn banaanaado labada dhinac si isleeg uga soo durug salaamaad fiiri si kasta u kala weyneyno intuu intaan ka soo durkay iyo intuu geestan ka soo durkay isku in bay noqonayaan si kasta u sii weyneysid hal wuxuu kala u baahanaa inaan xalino intaan ka tegin containerka laftiisa meeshaan fiiri markaa kan kala jiido suu ila socdo 90 boqolkii uu yahay oo markuu meel dhex marayo wuu iga harayaa yani ila socon mayo waxa bilaabaysaa in weyn banaanaato laakiin kayga fiiri iskala kay soconaya kayga awe kayga waa kan kayga fiiri iskala kay soconaya iga hari mooy haddaba waxaan sameynayaa maadaama aysan qurux badnayn waxaas aan rabana aad u weynaado aan xoogaa iga yara haro waxaan sameynaya erey laado iga har oo maxay tahay yani widthkaaga ugu dambeyn meequu gaari karaa erey max width la yiraahdo max width waxaan hayaa waa 800 pixel waa tijaabin ka dhacay waxa duwan laakiin 800 pixel baan arkay inay ugu rontahay fiiri hadda markii 800 hadda wili 800 pixel lama gaarin markuu kan dheerkii 800 pixel gaaro containerkayga wuxuu bilaabayaa inta badan 90 boqolkiiba ma ahaan karo kulama socon karo meesha ugu sareysa anu aan gaari karo 800 pixel sida halkaas kaga haraya marka halkaa maray fiiri wuu iga hara يعني انت تسلوم ولا halka wala socday marka halka mar bilaa anu iga haro fiiri kaligaas soconaya iga haro total يعني intaan iska weynaan total ka haray intaan iska weynaanaysa taqriiban inta waa dhameeyay maxaa noo haray hal wax waa noo haray just one thing
waxaan sameeyay hal wax baa noo haray oo ah fiiri pagekan halkan uu ka yara dugsan yahay xoogaa laakiin teena toos buu iskugu dhegsan yahay sectionkooda wuxuu toos ugu dhegsan yahay heerarka saa darteed see u bedelaan siyaabo aad u tiro badan baa jira aad u bedeli kartid laakiin heerarkan iyo sectionadan maxaa kala qaybin jiray heerarkan wuxuu ku jiray tag la yiraahdo heerar sectionadana kulligood waxay ku jireen section la yiraahdo tag la yiraahdo main saa darteed waxaan ciwaan u samaynayaa waxaan style u samaynayaa mainka soo qabso maadaama tag magaciisu ahaa dot iyo hash midna uma baahna mainka soo iska qoranaya waxaan dhahayaa hal waxa u baahanaa kaliya inaan dhaho banaanka ha laga durko ereyga laga jiro maxaa margin buu ahaa waxaan dhahayaa tusaale meeqa laga durkaa 20 pixels yep waxaan saas u qortaa soo jeed yani 20 pixels markuu sameeyay saaro hoos kaliya lagama soo durkin sababta taggu intaa dhan main taggu intaa dhan waa waxaan dhan waa haystaa sababta markaan margin dhahno korna waa laga soo durkayaa geesana waa laga durkayaa sidoo darteed fiiri waxaanoo yaraadaa arkaysaa mar yaraaday yep korna way kasoo durkeen sidoo kalena way yaraadeen widthkooda ugu yaraado and that's exactly what we needed waxay u baahnayna waa intaas taqriiban هذا وبالله التوفيق CSS sidaas u fududahay muuqaalka xogaa duweb weyn idmo waxaan isku keeni doonaa HTML CSS JavaScript markaas waxaan ka samayn doonaa waxyaaba interesting maraan game samayno maraan website caadi samayno dhammaystiran interactive maraan waxyaaba kala duwan samayno haddaba la soo maangal intaan muuqaalka xoog salaamu calaykum